بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ومركل البرنامج كوبع فكر كاجا evolutionary biologist علماء كنت تخصصتي علمي نولها يهرو مركزة عيا واحد دوقرن باريتان كسمايان دم الفروغة أما سيبرا واحد سويدينيين وانت ايجيين واي دم الفروغة يعني uga kooban yahay magaras wuxuu ka kooban yahay xariijimo ka kooban madow iyo cadaan way uga kooban yihiin yani waxay ogaadeen ugu dambeyntii waxay ogaadeen in xariijimaha ka kooban madowga iyo cadaanka ee waxyaalo fara badan ka difaacayaan waxyaalaha ka difaacayaan waxa kamid ah xayawaanada yararka xayawaanada kale inta ku duldegtaan dabatana dhiig ka jaqama dhiig ka caba dabatana taa inta badan waxay horseedaa inay ku dhacdo xanuun inay ku dhacaan xayawaanada taa ay ka difaacdaa waxay sameeyeen oo kaleeto yani faras ay inta soo qaadeen ay waxay dul saareen magarasade ama yani saq ama waxay dul saareen maro ama wax loo ekeysiiyey sida dameer farowga oo kaleeto ee lagu daboolay dabeeto waxa ka soo baxay markaa xayawaanadii magarasa fardaha ku degan jiray ama inay cunaan ama dhiig ka dhuuqaan ee horseedi jiray xayawaanada kale inay aad uga yaraadeen laakiin waxa cajiib kale waxa weeyaan libaaxa inta badan ma cuno dameer farowga kooda xoogan ku yararka mooyaane dabeetana waxay soo qabteen dameer farow ayaa waxaa la sameeyey kalar kale ama rinji kale ayaa la marimariyey ama casaan ama madow ama magarasa blue ayaa la mariyey rinji kale kalar kale ayaa loo sameeyey dabeetana waa la daawado waa la egtay laakiin waxa cajiib ka soo baxay waxay tahay libaaxa markiiba dee wuu cuno wuu ku guulaystay magarasa inuu dilo markiiba ma fahmaysa u ugaarsado sidaa daraaddeed adigu haddaad noqon weydo insaanka oo ilaahay ugu talagalay koonkan inuu camiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo abuuray yani 3 ujeedo ujeedada koowaad waxay tahay ilaahay inaanu caabudno yani wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyacbuduun ujeedada labaad ilaahay noo abuuro waxay tahay in kownkan annaga aanu nahay madaxda inaanu nahay kownkan khaliifkii kownka inaanu nahay wa id qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lard sidoo kale ujeedada saddexaad ilaahay noo abuuro waxay tahay kownkan aanu ku nool nahay inaanu camirno يعني هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي إلهي سبحانه وتعالى ليهي إنسانك إلهي لو قلت لك كونك إنه كنا ولاده كونك إنه عمره وحلو قلت لك إنه كهجاجيو إنه كشقيو إنه نقضي إنسان بني آدم أو شرف كنول إنه نقضي إنسان جاهل لماذا يكفك إنسان بني آدم وحبرت إيدا ذا أخوان يشتئنه ياي waxaa loogu talagalay insaan magarasa si sharaf leh ku noolaada ee dhaqaale iyo adduun raadsada magarasada ayaa loogu talagalay insaanku waxaa loogu talagalay bani aadam koonkan ugu talagalay inuu si xor ah u noolaado si xor ah inuu u noolaado xagga fikirka ee dhan walba insaanka ilaahay ugu talagalay koonkan waa insaanka diida doqonmaysiinta ama in lagu doqonsiiyo dulinimada iyo dulmigana diida sidaa daraaddeed insaanku bani aadamka laakiin si garo maanta waxaanu arkaynaa haddii aanu bedelno identitygeena ama huwiyadeeda haddaanu bedelno sidii markii dambe farowga loo bedelay kalarkiisii markiiba loo ugaarsado libaaxa u dilay iyo xayawaanada kaleetada ee ugu nuglaaday innaguna maanta waxaan noqonaynaa haddii ujeeddadii ilaahay loogu talagalay oo aynaanu koon ka camirno oo khaliifadii koonka aanu haddaanu ka leexanno haddaanu ka bayrno waxaa u nuglaanaynaa doqon iyo doqon walba oo hadasha inay saameyn nagu yeesho inaanu kala garan weyno kan cadowga inoo ah iyo kan magaransa dee saaxiibka inoo inaan kala garan weyno inaanu kala garan weyno dulmiga iyo dulinimada iyo doqonnimada inaanu kala garan weyno ay imaanaysaa haddaba isweydii ma tahay bani aadamka ilaahay koonkan ugu talagalay waxaad isweydiisaa maxaad u nooshahay noloshaas anigu maxay roolkayga koon muxuu yahay hadafka aan nolosha ka leeyahay muxuu yahay koonkan maxaan anigu u joogaa u noolahay haddaadan isweydiin
isweydii meesha ashalat wala joogtay iyo maanta aad joogtay ma isku mid ba bal isweydii waxaad weydiisaa nolosha anigu ma dheeraad baan ku ahay mise nolosha waxaan u soo kordhiyaa ma ahay qof dadka baniaadamka anfacaya mise ma ihi qof baniaadamka anfacaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam isagoona baraya arrinka maanta ka sheekeynayna macnaha uu leeyahay wuxuu leeyahay haddii adigoo geed abuuraya adigoo geed beeraya haddii qiyaamadaadu dhacdo yacni ee dhimashadaadu soo dhowaato ama markaaba aad oganayso inaad ogaato inaad dhimanayso haddii aad isku dayi kartid inaad ka gaarsiiso geedka inaad beerto inta aadan dhiman ka gaarsii ayuuna leeyahay